idkii jeexa afisyooni ka furmay shir u dhexeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wiilka la hidin waayay Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada labada docood oo ballansanaa 27kii bishii galbatay ayaan isariirin kadib markii la isaga carra qaaday labada nin ee ka wada taliya Soomaaliya. Shirkan maanta furmay ayaa la sheegay in dhinacyadu kaga wada arrinsan doonaan dhowr xaaladood oo ay ugu weyn tahay qorshaha doorashada. Waxaa la sheegayaa in saddexda maamul goboleed ee kala ah Hirshabelle, Puntland iyo Jubbaland ay haanta gadaankeeda soo saareen in dib loo furo daawadii la qaatay gugii 2020 ee arrimaha doorashada. Si gaara waxay u doonayaan baa la yidhi in la laalo xeer sheegayay in doorashada laga malaqboodhiyo laba magaalo oo keliya. Waxay sheegeen inay rabaan in hadda lagu soo koobo hal magaalo oo keliya. Waxaa intaa lagu daray in loo cuskaday arrimahan maadaama oo bay yidhaahdeen aanu Axmed Madoobe tagi karin gobolka Gedo iyo deegaanka Garbaharey oo ah magaalada labaad ee loo saantay in doorasho ay ka dhacdo. Dhinaca kale isaguna Siciid Deni ayaa isna loo soo jeediyey inaanu doorasho ku qaban karin Boosaaso oo ay cawsanayaan ilmo Diyaano oo dhowaan ay Deni iskala dhaceen Qaw iyo Buuraha Qandala. Sidoo kale Cali Guudlaawe ayaan isaguna food gelin karin magaalada Beledweyne oo ay baaruudu ka qiiqayso. Haddaba madaxda maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay isku raacaan ama guddoonsadaan in doorashada lagu soo qaydo hal deegaan iyadoo muska laga shalwinayo heshiiskii hore ee ahaa laba deegaan. Si kastay ahaataba waxaa la sheegayaa haddii taa la isku dhaarsado inay doorashadu ka dhicin doonto Baydhabo, Kismaayo, Jowhar, Garowe iyo Dhuusamareeb. Ugu dambeyntii waxaa la sheegayaa in madaxweyne Farmaajo uu geeri ka xigo taasi. Waayo waayadeed marnaba Farmaajo ma ogolaanayo in 16 kursi ee Oosha Mareexaan isla jeerkaasna yaalla deegaanka Garbaharey ay gebi ahaantood loo wareejiyo Kismaayo kadibna uu Axmed Madoobe ka adeegto. Ilaa 2 dharaarood kadib ayaa la naawilayaa in shirkani soo abyeebi doono. Ugu dambeyntii daawada qoraal kooban oo uu soo saaray girgirka haanta ururka midnimo oo ka dhisan ceelka xamar ayaa lagu sheegay in koonfurta Soomaaliya ay la fur iyo foodleysay wixii midnimada lagu sheegi jiray waqooyi iyo koonfur. Ururka ayaa gobada ugu dhiishay xukuumadda Farmaajo isagoo dhayda ka cadeeyay inaanay marnaba federaalka noqon karin dhowr maamul goboleed oo ka dhisan koonfurta Soomaaliya tiyo dalow laga tuuray Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qoraalka oo soo gaadhay waxaa ku saxanaa guddoonka ururkani midnimo Sakariya Nuur Saashin wuxuuna u dhignaa sidan: ururka midnimo wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka Soomaaliya in federaal ay noqon karaan keliya Somaliland iyo Soomaaliya. Federaalna ma noqon karaan buu yidhi maamul goboleedyada koonfurta Soomaaliya keligood oo ah mid ka mid ah labadii gobol ee midowgii 1960kii. Sidoo kale dalada midnimo shirka la filayo inuu Muqdisho ka dhaco uma aqoonsan doonaan shir qaran balse wuxuu yahay bay yiraahdeen shir madal wada tashi koonfureed oo kulmi doona keliya dhinacyada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo 5 madaxweyne goboleed kuwaasoo kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle, Puntland, Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sidaas darteed waxaanu ugu baaqaynaa buu yiri ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada koonfurta Soomaaliya si shirku u noqdo mid qaran waa inay Somaliland ku yeelato matalaab qaybna ka noqoto shirkaasi. Haddii kale aad Somaliland ku garab istaagtaan inay noqoto dal madax bannaan oo isgarab taaga jamhuuriyaddii la isku odhan jiray Soomaali weyn.